Io sono Francesco, mi chiamo Francesco Piacere. Maanta darsigeena kana waxaynu ku baranaynaa sida loo idhaahdo ama aad uga warramaysid xaaladaada iyo sidaad dareemayso. Phrase-ka koowaad aan soo qaadanayna wuxuu yahay Ciao Matteo, come stai? Ciao Matteo, come stai? Ciao Matteo, come stai? Hey Matteo, how are you? Come stai? We say come stai when we want to know how a person we know is doing. Come stai waxaynu adeegsanaynaa ama isticmaalaynaa markaynu rabno inaynu ogaano qof aynu naqaanaa xaaladiisu siday tahay. Come stai waxay la micno tahay how are you ama iska waran sidee tahay. Phrase-ka labaad aynu soo qaadanaynaa waxa weeye bene grazie, bene grazie, bene grazie, bene grazie. I'm good, thank you. To the question how are you, we can answer bene grazie. Markaynu ka jawaabayno su-aasha ah sidee dareemaysa waxaynu ku jawaabaynaa in Italy bene grazie. Bene grazie, bene grazie waxay la micno tahay I'm good, thank you. waan fiicnahay mahadsanid. Phrase-ka saddexaad aynu soo qaadanaa wuxuu noqonayaa benissimo, grazie, benissimo, grazie, benissimo, grazie. We say benissimo when we feel very good. Benissimo waxay la micno tahay I'm very good, aad iyo aad baan u fiicnahay. waxaanaynu isticmaalaynaa benissimo markaynu dareemayno dareen aad iyo aad u fiican. Ciao Matteo, come stai? I hope inaad darsigii saddexaad still aad ila socotid. haddii aad nagu cusub tahay make sure to subscribe our channel and follow us.